gudoomiyaha gobolka saaxil iyo maayirka magaalada Berbera ayaa maanta si wada jira xariga uga jiray dhismaha casriga oo hirgelisay dawladda hoose ee magaalada Berbera isla markaana uu tala gashay istaan ay isticmaalaan gaadiidka ka rakaabsada guud ahaan magaalada Berbera ee uu kicitimaya gobolada bariga iyo galbeedka Soomaaliland dhismahan loo dhisay habka casriga ah munaasabadii xariga lagaga jiray ayaa ugu horeen waxa ka hadlay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin isla markaana ugu baaqay gaadiidleyda rakaabka in ay dhamaanba halkaasi isticmaalaan isla markaana bulshada ay isugu timaado goobahan ay hirgelisay dawladda hoose ee magaalada Berbera wajigiisii koobaad oo ah baarkinadii meelihii gawaarida lagu meereeyay geerashkii meeshii laga shaqeynayay iyo framekii guud oo dhan baa inoo dhammaaday intiisa kale isla sanadkan ayay ugu jirtaa qorshaha iyo lacagtu ay ugu jirtaa qayb ka midii gebigiisana dibadda laga wada keenayaa marka laga reebo sabada dhulka hoose la dhigayo iyo dhirta meesha lagu beeray marka laga reebo isagoo dhammaystiran ayaa dibadda loo diray waanu inoo imanayaa waana wejiga ugu dambeeya ee meesha lagu soo gabagabeynayo terminal bus stationku himilada golaha deegaanku ay lahaayeen ma aha un inay markay joogaan ay muuqdaan waa inay intay joogaanna ummadda wax u qabtaan inta aanay qaban karayn ay u odorosaan ay u saadaaliyaan oo wixii xumaana iyo wixii dhibaataaba waxaan ogahay waan anagu in badan ugu soo noqnoqdaa inay dadku taarget gareeyaan waliba dadka inuun wuxuun istaawinaya dhaqaale inuun haystaa inay taarget gareeyaan goobaha danta guuda hadhowna lagu eedeeyo golaha deegaanada iyo xildhibaanada lagu eedeeyo iyo maamulka dowladda lagu eedeeyo waxaan ogna aan ka fadhiyi kari laanahay kuwa magaalada degan oo dhaqaalaha haysta oo maalinba halka danta guud soo egta iyagu oo koranaya halkaas wacaana macaanay kala gooso waxba goosan meynee intii ilaahayna siyaan ku noolaanayna waxaan ku faraxsanay dadii duyo waan buuxnaa golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaa ka go-an muddo badanna way soo shaqeynayeen sanad walbana waxay odorosaan halaygu beeneeyo wax kasta oo ay odorosaan intooda badan 90% way fulaan gudoomiyaha gobolka saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo hadalka soo afmeeray ayaa ku amaanay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin talaabadan ku dayashada mudan isla markaana waxa uu sidoo kale u baaqay bulshada iyo gaadiidka dhamaanba inay halkaasi isugu yimaadaan si ay u noqoto isla markaana waxa uu ku amray dhamaanba gaadiidka ka rakaabsada magaalada Berbera inay halkaasi isugu yimaadaan tiro kasto ay leeyihiinna yahay dhiskanu mid qaadi kara waa waxyaabaha uu madaxweynuhu noo igmaday inaan dadka u qabanno councilinku dadka u qabtaan gudoomiyaha degmadu dadka u qabtaan gudoomiyaha gobolku dadka u qabtaan laakiin waxa ku suntan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa ku suntan laakiin anagu sida rag qaarkood ku faani mayno wuxuu madaxweynuhu noo igmaday inaan ilaano waxaan qabanay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa cid kasto meesha ka qayb gashay sida shirkadda dhisaysa oo aad tabac fara badan ka galay Bulaale Construction Company aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Soul Television ka caalamiga RTN magaalada Berbera